kulanti wacan daawadayaal waa mar kale iyo xalqadeennii 11aad maanta waa ay ka duwan tahay xalqada kuwii hore aad u soo daawateen daawadayaal nala wadaaga aragtidiina maanta laba ka mid ah geesiyaasha dalka Baxrayn ayaa diyaar ku ah barnaamijka. حلقتنا اليوم مختلفة تجمع بين بطلين مختلفين لكنهم مثال لآلاف الأبطال اللي وقفوا بالصفوف الأمامية أثناء جائحة كورونا. maanta waxaa marti ku ah laba qof oo dhaqaatiir ah oo iyagu safka hore ka galay ka hortagga cudurka COVID-19. Titorkan ayaa ka mid ah oo aan sheekadiisa daawan doono. jaakada uu wato gadaashiisa waxaa ku qoran ku dayasho Titor Cali aan kugu dayanaynaa ayaa ku qoran. نزل البنر بانركي ayaa la soo dejiyay. الحين نداء هام. معانا الدكتور علي من أبطال البحرين الحقيقيين تقاعد من العمل من سنوات طويلة. Titor Cali muddo sanado ah ayuu waxa uu ka fadhiistay shaqadii markuu maqlay in loo baahan yahay dhaqaatiir safka hore COVID-19 ah. isaga ayaa ugu horeeyay dadkii goobta tagay ee si mutadawacnimo u shaqeeyay. وايد يعني إذا شاف إنسان في عنده مشكلة أو إنسان محتاج حق شيء سواء إنسان قريب منه أو بعيد عنه. liina waa gabadha u dhalatay Titorka waxay leedahay waa aabo fiican oo dadaal badan oo dadka inuu caawiyo jecel. ninkan waa saaxiibkiisa Xamiid waxa uu leeyahay waa dadka jecel dhammaan shacabka jecel. كان يتعامل معنا على أساس إنه هو أبونا وإحنا عياله. هو من الأطباء. wuxuuna la dhaqmi jiray sidii aabbaheena oo kale ah noloma dhaqmi jirin sidii hogaamiye oo kale ayay leedahay. الكثير لهاي البلد. طبعا هو دكتور علي تقاعد من العمل الحكومي. لكن Titor Cali shaqadii xukuumadda waa uu ka fadhiistay laakiin waxa uu waday arrimaha u gargaaridda dadka. وكان يداوم أكثر حتى من الموظفين. كان من ضمن xitaa waxa uu ahaa qof ka soo hormara shaqaalaha marka loo eego dhinaca shaqada. محجر مثل محجر الحج. كان هاي الطبيب يحرص إنه يلبي حاجات الناس ليس فقط الصحية بل أيضا الاجتماعية والنفسية. اتصل عنه اسال عنه اقول له يكون في عونه كنت بخطر وكذا. dhowr jeer ayaan wacay waxaan dhahay arrintan khatar ama naftaada ay ku tahay balse waxa uu sheegay in uu shacabkiisa uu adeegayo si fiican ugu adeegayo. gabadhiis waxay leedahay aad ayaan kuugu daysanayaa waxaad qabatay waa geesinimo. من اللي أنت وصفته. ألف شكر من كل قلبي. ممنونة لكل كلمة وكل سند وكل نصيحة أعطيتني إياها. انت قدوه طيبه للانسان اللي adiga waxaad tahay qof ku dayasho mudan marka bini'aadanimada loo eegayo shaqada aad qabatay. استمر بمحبتك لكل الناس اللي فيها. عطائك مميز بصمتك واضحة. رد العرفان للبحرين بالاستمرار وانت قدها وإن شاء الله مع بعض نوصل لبر الأمان. شكرا دكتور علي. kani waa Titor Cali waxaa la guddoonsiinayaa biladii u qalmidda geesiyaasha dalkaasi Baxrayn dadka bulshada safka hore kaga jira ee adeega fiican qabtay ama haliyeeye noqday. مفاجأة بالفعل صعبة جدا نفس الوقت أنا ما أدري ليش ما كان arrintan waxay igu ahayd mid lama filaan ah balse waxaan soo dhaweynayaa ما تعطي in dalka waxa uu ku gashtay in aad bixiso oo aad adigana aad gelisid. عطاء من الوطن إلى الناس
الناس الذين يخدمون. ميدالية كفو وسام على صدري، أعتز فيه ويدعوني للعطاء والبذل أكثر وأكثر. دكتور علي أنت كفو. دكتور علي أنت كفو. دكتور علي waad u qalantaa. دكتور علي waad u qalantaa. martida labaad ayaan eegi doonaa waa tutoreeso kale iyaduna. يلا نبتدي شباب. نزل البنر. baanarka la soo dejiyaa la yidhi. tutoreeso maryama send iyaduna waxa ay ka mid ahayd kuwa naftooda u horay dalkaasi baxrayn ee safka hore ka istaagay kahortaga cudurka covid-19. من أبطال الصفوف الأمامية بحكم عملها في المختبر واستقبالها لعدد هائل من الفحوصات يوميا، قررت تشتغل بكل طاقتها وبنوبات عمل متتالية وبدون توقف عشان تخلص أكبر عدد ممكن من الفحوصات وتساعد في سير العملية الطبية بكل سلاسة. waxay joogtay goobta fayraska lagu baaro oo boqolaal dad ah maalin walba ay ka baari jirtay. مريم سند من أفضل الموظفات بمختبر الصحة العامة. اشتغلت معنا في حوالي 10 سنوات الماضية. وايد من النوع اللي waxayna la shaqaynaysay ay leedahay 10 sano shaybaarka guud ee dowladda ayayna ka howlgalaysay. انت want to do ان على القليله تكون نفس المستوى مالها. خلال فتره جائحه كورونا مريم عملت بكل طاقتها تشتغل لساعات طويله. intii lagu guda jiray xilligii koronaha waxa ay ahayd qof si aad u shaqeeyay waqti badan shaqeeyay xitaa fasax aanan qaadan. توصل في شفتها الى 3000 الى 4000 عينه في اليوم. يعني تبي ذاتي بعد 24 ساعه waxay sameey jirtay 3000 ilaa 4000 oo baaritaan ah oo fayraska koronaha ah. العام الماضي وكانت توها واصلة البيت ومخلصة الشفت وطلبت منها تحضر. توها بتتفطر مريم في أرض سامبل لازم تجي. فمسكينة ما قالت لا، قالت إن شاء الله وياك في نفس الوقت، واشتغلت وأعطت النتيجة في وقت قياسي. والله أنا قلت لها أخذي إجازة ارتاحي فيها عشان شوي يعني ترتاحين من الضغط. caaisha waa dumaashida tutoreeso maryama walaalkeedii ayaa qaba waxa ay leedahay waxaan ka dalbanay xitaa inay fasax ay noogu timaado balse waxa ay ahayd midna dareensiisay in shaqo adag ay qaranka ay u hayso. سعيدة جدا أن أزمة الكورونا علمتني على إنسانة مثلش تعاونش. waa mid ka mid ah saaxiibadeedu waxay leedahay xilligii corona lagu jiray waxaan bartay dad adag oo geesi ah oo tutoreeso maryama ay ka mid tahay. أيامك القادمة. أشكرك على كل عطاء قاعد تعطينا ديرتك، أشكرك من كل قلبي يا جندي المجهود. الله يعطيك على قد مقدورك مجهودك، إن شاء الله تشوفش بأحلى المراتب، الله يعطيك على قد نيتك وتستاهلين كل خير حبيبتي انت. daawadayaal meel walba aad joogtaan ramadaan kariim waxaad nala wadaagi kartaan aragtidiina muuqaalka iyo kuwii hore ee na soo dhaafayba. waxaa hadda la guddoonsiinayaa biladeedii. waxaan dareemayaa ay leedahay dhiirigelin iyo farxad barnaamijkana la sameeyey. ma dareemeynin ama ma filaynin ay leedahay in arrintan lama filaanka la ii sameynayo. مريم أنت كفو. مريم أنت كفو. مريم أنت كفو. مريم أنت كفو. مريم
أنت كفو. maryamo waad u qalantaa maryanta waa u qalantaa ayay رسم صورة leeyihiin جميلة عن خدمة الوطن لما تطوع وعاد للعمل بعد سنين من التقاعد. ومريم حاجة وطنها كانت فوق كل شيء لما ضاعفت جهدها واشتغلت ليل ونهار. وهذه حال كل أبطالنا في الصفوف الأمامية، نداء الوطن بالنسبة لهم فوق كل شيء. أبطال في الجد والاجتهاد والتفاني في العمل، أبطال في التضحية من أجل الوطن. صفوفنا الأمامية، أنتو كفو.